waxaan leeyahay cilmiga la kala qaataa culture-ka lama kala amaanaysto walidaalika hadii goor waxaan tilmaamaa nukatay ka sheegaan ninkii Gandhi la oran jiray Mahatma Gandhi nin aqoon-yahana buu ahaa oo waddankiisa rabay xornimo inuu horseedo oo aragtidan pacifism-ka la yidhaahdo maxay yidhahdaan pacifism in aad si nabadgelyo aad dagaal ku gashid aragtida dunida ku faafiyey Mahatma Gandhi aqoon-yahan buu ahaa laakiin wuxuu ka santaagi jiray dhaqan cid kale inuu qaato saawgeed wuxuu xidhan jiray laba go' oo cadcad iyo ul buu qaadan jiray labada go' diintan uu haystay iyo dadkiisu waxay dhaqan u lahaayeen go'a hoose marka la guntado inta la duuduubaaba dabagelis xagga dambaa la geliyaa marka labada din dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sida bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu u xidhan yahay dadka waaweyn baa saa u xidhan waxay sheegaan isagoo wixiisaa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisu inuu helo markaa ushiisiina sita labadiisii go'na sita ay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisan oo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this waa maxay maradana dabada gashatay ku xidhantay maxay tahay Gandhi intaanu maradiisa ka jawaabin buu wuxuu weydiiyey what is this taygii uu kana xidhnaa ayuu yidhi kani waa maxay ninka wuxuu yidhi this is necktie kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanayo waa qoor ku xidhan and this is back tie buu ku yidhi markaa يعني maxaa ka dhigay adigu maradaad qoorta sudatana wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyay hadba qoortaad mid iskaga xidhaye ana halkaas iskaga xidhaan buu yidhi tanna back tie baa la yidhaahdaa tanna necktie baa la yidhaahdaa maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay kaljaradu maaha cilmi hamoodin markaad u timaado iyagoo ama dhafoor xirtay ama marada jeexjeexan qaatay ama kan qaatay ammaan maaha it's a culture waa dhaqan ay iyagu yeesheen adiga waxa lagaaga baahan waxa weeye inaad dadnimadaada ku faantid dhaqankaaga inaad ku faantid waxaad leedahay inaad ku faantid maaha inaad maydhantid oo kullu naaciq qof kasta oo qayliyey wuxuu sheegay inaad raacdo maaha waa inaad qof bini aadama oo jira oo dhaqan iyo afla aadaad waa inaad luminin caqaa'id iyo valueska aad aaminsan tahay value islaamnimadu waxayna fartay in ballanka la oofiyo in run la sheego in dadka si fiican loola dhaqmo halkan markaad timaado inaad wixiiba ka baxdo been daldashid oo ballanka ka baxdid oo waxaad doontaad samaysid dee saasi ma aha saas waa adoo maydhmay saas waxay leenahay waxbaro waa marka koowaad ma raba inaad xamaal noqotid waxaan rabaa qof waxbartay oo xogsan karaya inaad noqoto at the same time waxaan rabaa inaad noqoto qof mabaadi iyo diin xambaarsan qof dhaqan iyo dadnimo leh qof wax rumaysan inaad noqotid haddaba waxaan leenahay dhallinyaro inaad wax barataan 3 challenge oo waaweyn baa idinka hor iman doona 3duba daawo way leeyihiin haddaad ku tala gashaan challenge-ka koowaad waa challenge-ka shubahaadka ah in diintaada lagaa shaki geliyo dhaqamo cid kalena lagu ammaano lagu qurxiyo lagu tasyiiniyo la ammaano cid waliba waxeeda markay ammaanayso waa cadaalad iyo waa xuquuq iyo wax kale ku dheehdaan laguma yidhaahdo iminka marka waddan lagu duulayo miyaa la yidhahdaa waxaan rabnaa waddankaa inaanu qabsanno oo shidaalkiisa iyo xoolihiisa soo qaadanno mise waxaa la yidhaahdaa waxaa la rabaa dadkaasi in dictatorka laga turo xorriyadda la gaadhsiiyo xorriyaddani waxaan waa afbeenbeen cidna xorriyad lama gaadhsiina cid walba waa la soo boobo waa la tumay idan waa suuqgeynta waa dadka si looga dhaadhiciyo waa inaan la odhanin war dowladda hadday imika inta istaagto tidhaahda waddankaa waxaan rabnaa wixii soo dheer inaan soo qaadano soo la odhan maayo war nimankani may waasheen laakiin hadday yidhahdaan waanu soo horu marinaynaa xataa markii layna gumaysanayey lama odhanin waanu gumaysanaynaa waxaa la yidhi maxay isticmaar colonku waa maxay waa to cultivate waa beerista waa horu marinaynaa baa waa layna soo horu marinayaa baa la yidhi xadaaradaa layna soo hadda waa lagu gumaysanayaa gumaysigiiba waxaa loo bixiyay inay tahay horumarin idan waxaad jaamacaadka iyo meelaha kan iyo cultureka ugu tegi doontaa
mabaadi' badan oo magacyo kala wadata xaqiiqadu saay wax kala tahay idan shubhada waxa saara bay culimadu yidhaahdaan daliil caddayn baa saarta qof lagama shakisiiyey ilaahay jiritaankiisa haddaad tidhaahdo salaada tuko dee muxuu tukadaa waxa uu isku hayaa ma jiraa mise ma jireen idan waa inaynu barannaa tatciimkii waa inaynu yeelannaa caqiidadeena inaynu toos u baranno kaasi waa shayga koowaad shayga labaad dee ninka dhallinyarada waajahaya waa taxaddi alakhlaaqi waasuluuki jaamacad ama iskuul baa tegi doonta iskuulka dadkao dhammi wuu isku dhex jiraa inamo iyo hablaba dhallinyaro caafimaad qabta oo wada xooggan oo qaawan baa dhex tegi doonta maada tafcal maxaad yeeli hablo adiga ku saloolanaya inamo ku saloolanaya meesha oo dhan oo la isku sii daayey oo dhallinyaro dad wada oo caafimaad qabo xooggoodu u dhan yahay idan waa taxaddi akhlaaqiya waa shahawaati nafs dawadeedu waa alcifa wa taqwa allah nebi yuusuf baa meel ka adag galay oo gabadh isku dayday inay iqraa ku samayso inay duufsan karto oo diiday oo xataa markii dambe isku dayday inay xoog ku kufsato ilaahay qur-aanku inooga warramayaa nebi yuusuf yaa wuxuu yeelay وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي الباب بدأ يحرق ما إلى هير دبيتنا وهيسكت ديدين كفصته لكن وهيسكت ديين ومحي كبد بادكه إلهي أحسس ناضه إلهي وحيد لي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وارهد دور سنادان كوا أنقور هلينني إلى ينت إلهي كغني يلي دلني يرى وحلو إلى ما قورسو أما الصون وإلهي كعبسو وكحدا مساجد ديام إله هذا الله كعبسك كهليس هذا قارك حيث أنت تشدال كبوحسو waa tidhahda weligii buu iska soconayaa ka warran meel dhexe markaad marayso unbuu surbacaadi doonaa soo maaha ayuunbaa wax waliba ka dhammaan doonaa laakiin wuxuu u baahan yahay markaad aragtay inuu dhammaanayaba inaad shidaalle ku weecsato maxay kaga shubatid aad zaadka qaadatid masaajidda iyo dhulka iimaanka lagu hayo iyo muxaadaraadka iyo meeshani waa meeluu qofku zaadka sii qaato markaad aragto weelkaagu inuu sanqarhayaba in xagga beleda laguu sii hayaba kaalay masaajidda iyo cibaadada dhulka lagu haya khayrka zaad cusub baad qaadanaysaa muddo maxaa laynoo yidhi toddobaad kasta salaad jimce tuko oo khudbad soo dhegayso waa qofku inuu zaad helo waa inaad hesho sahaydii aad toddobaadka ku jiri lahayd ee kusii joogi lahayd waa inaad heshaa meesha tanaad joogtaan marka waa meel khatara iskuullada iyo jaamacaadka waxay yaallaan noloshaasi rag iyo dumarba la isku daray rag iyo dumarba siday u dhowrsanaan karaan waxay dhowrsanaan karaan hadday xidhiidhka ilaahay la leeyihin uu xooggan yahay xidhiidhka alle la leeyihin hadduu xooggan yahay iyo hadday u suurtogelayso inay guursadaan waalidiintana waxaan leeyahay waar guurka fudaydiya oo dhaqankii hore ka daaya intaa fudaydin kartaan fudaydiya intaa fudaydin kartaan fudaydiya oo inan iyo inanba inuu guur xalaale helo xataa haddaanu korin karin 2-3 sannadood ee jaamacadda la wado xataa haddaad doontaan waxba ha dhalina laakiin waxaa la rabaa inaad dhowrsanaato oo qof muslim oo dhowrsoon sidaad u noqon lahayd in la tijaabiyo masalada saddexaad ee dhallinyarada ka hor timaada waa faqriga ardaynimada iyo faqrigu way wada socdaan dhallinyaraduna inta badan waxay tidhaahdaan waa mar horta sanadku yaro tuur shaqo oo yaro xoogso dabeetana mushaharkaas unbaa la macaanaado halkaasunbuu ka wadaa hadhowna 5 ciyaal unbuu dhalaayo wuxuu is idhaahdaa war jaamacadna ku noqon kari mayside iska xoogso oo sii wad buu is idhaahdaa
waa inaad sanad iyo laba iyo saddex faqri ku noolaatid iyo inaad noloshoo dhan xamaal iyo faqri ku dhammayso iyo ma roon inaad nolosha oo dhan xamaal ku dhammaysid iyo inaad ku tala gasho sanad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shanba inaad waxbaratid laakiin aad hadhow mustawa fiican ka bilowdid dhallinyarada waxaan leeyahay faqrigu akhlaaqdiina iyo diintiina ayuu xumaynin dhallinyarada bar baa markay faqriday tuuga u dhaqaaqay dhallinyarada bar baa markay faqriday suuqa madow u dhaqaaqay dhallinyarada bar baa markay faqriday mukhadaraad iyo balye baas u dhaqaaqay oo quick money war lacag degdega xaggee laga helaa bay tijaabiyeen dee waxaa laga heli karaa daroogo iyo suuqa taana maalmaha hore la soo jiidanayo maalintii 3,000 4,000 soo hel bishii horeba 150,000 buu helay waa ku soo waday aakhirka xabsigaad ku dambayno tuug wuxuu maanta qaado berri qaado la qabay uma xigi saanka maaha daa tuugada wado maalin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo boqol markaad baxsataba aakhirka waa lagu qabanaya la qabay baa xigi doontaa waxaan uga dan leeyahay war suuq madoobi maaha wax la galo darooga wax la iibiye maaha tuuga wax la sameeye maaha qof identity la noqo soomaalidii hore waxay ku mahmaahi jirtay waad baahatay looma bahala cuna bay odhan jireen baaha ay hayso dabeetana wax walba waan iska cunayaa maaha caqligal bay odhan jireen waanu baahanno waxba waa weyna suuqaanu iska gelaynaa waxaanu doonaa baanu samaynaynaa noloshu saa maaha waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dullinimada ka baxno madalla weeyaan inaad mukhadaraad iyo suuq madow iyo maxaa la yidhahaa tuuga iyo waxaan dhaamin inaad ka shaqayso ilaahay qolu qur-aanka ku tilmaamay yaxsabuhum ljaahilu aghniyaaa min altacafuf qole la yidhi haniyadu waxay moodayaan dad wax haystaa siday u dhowrsoon yihiin daraaddood ayuha alaxiba waxaan idin leeyahay dhallinyaroy saddexdaa challenge baa taagan meesha tan inaad wax noqotaan ka koowaad waa khatar oo diintiinu khatar ku yihi ka labaadna akhlaaqdiinu khatar ku yihi ka saddexaadna dhaqaalihiina iyo mustaqbalkiinu khatar ku yihi saddexdaba haddaad ragtiin waa ka bixi kartaan haddaad tale iyo go-aan iyo ilaahay oo aad tala saarataan yeelataan saddexdaba waa ka bixi kartaan haddaad rabtaan adduunkan inaad markaa wax ku noqotaan facalaykum bilcilm haddaad rabtaan aakhire inaad wax noqotaanna facalaykum bilcilm labada goorba waa cilmi laakiin cilmigii halkan yaallay dhibaatadaasaa la socota dhibaatadaana waxaad u baahantahay inaad challenge garayso oo qof diin iyo akhlaaqla aad noqoto waalidkana waxaan leenahay war dhallinyarada dhibtaasaa hortaagan maadaama dhibta intaa leeg ay hortaagan tahay isku day aqoonta inaad u fudaydin karto oo dayntan iyo waxaan ka daysay oo guriga joogo oo wax ka cuno isku day inaad dhistid oo aanad meeshaa u geynina inuu diintiisa iyo caqiidadiisa bari kartid isku day baynu leenahay haddii loo guurin karo wiil iyo gabadhba in loo guuriyo isku day baynu leenahay in laga ilaaliyo dadka xunxun iyo suuqa mukhadaraadka iyo beliya baaskana laga ilaaliyo idan challengeskaasa hortiina yaalla haddaad waalid tahay iyo haddaad nin dhallinyaro a tahay labadiinaba wuxuun baynu kaga bixi karnaa markaa iyadoo a ilaahay ku xidhanno oo cibaadada laasimno oo ka mid noqonno kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam 7 aakhiro carshuraxmaanka harhsan doona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro oo cibaado ku koray ama uu nebigu lahaa ilaahay wuxuu la yaabaa nin dhallinyaro oo aan inxiraaf iyo weecweecad lahayn ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah wiil dhallinyaro aan weecasho lahayn waxaynu u baahannahay inaad noqotaan kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam shan horteed ka faa'iidayso nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin caafimaadka ka faa'iiday intaanad xanuunsanin firaaqa fursadda ka faa'iidayso intaanad mashquulin dhallinyaronimada ka faa'iiday intaanad gaboobin waxhaysadka ka faa'iiday intaanad faqrinin
su-aasha aakhire lagu weydiin doono ee ah war dhallinyaronimadaadii maxaad ku bixisay inaynu ka hortagnaa baynu u baahanay.